helista marinka badda ee wasiirka Turkiga ka hadlaya micnaheedu waxa weeyaan in labada dal iyadoo la ixtiraamayo madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliya in ay markaas Ethiopia heshiis la gali karto Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa ku hawlan sidii meel mar looga dhigi lahaa is-afgarad ay gaareen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya, waxaana ilaa ay hadda socdo dadaal xooggan oo lagu wada hadalsiinayo Soomaaliya iyo Itoobiya kaasi oo ka socda gudaha dalka Turkiga. Waxa ugu badan ee la isku haya ayaa ah luqadda iyo ereyada loo adeegsanayo waxyaabaha ay ku heshiin doonaan waqtigan. Turkigu waxa ay soo bandhigeen ilaa 3 aragti oo kala duwan oo mid ka mid ah uu yahay inay dhisaan deked laga hirgeliyo gobollada dhexe ee Soomaaliya ee dhinaca badweynta Hindiya oo ay kadibna isticmaasho Itoobiya. Qiimaha ay ku isticmaalaysana uu la mid yahay kan dalka Djibouti, lahaanshihiisana ay leedahay Soomaaliya, canshuurtana ay qaadayso dowladda federaalk ee Soomaaliya adeegana iyadoo ay bixinayso. Itoobiya ayaa waxa ay weli diidan tahay inay beeniso ama ay ka baxdo isfahankii ay la gashay Somaliland iyaga oo ka warwareegaya luqadda cad ee rasmiga ah ee lagu saxiixay heshiiska la doonayo in lagu wada galo dalka Turkiga. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal Soomaali badan shaki ay ka muujiyeen oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan uu ku sheegay in marinbadeed la siinayo Itoobiya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo ka mid ah wafdiga Soomaalida ee ku sugan dalka Turkiga qaasatan magaalada Ankara ayaa sheegay in marinbadeed aysan ahayn wax ka baxsan mid ganacsi oo Itoobiya ay la yeelato Soomaaliya, isagoo xaqiijiyay inay macquul tahay in Itoobiya ganacsi ahaan ay u soo gaadho badeena. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaysan marnaba ayna Soomaaliya ka tanaasuli doonin mowqifkeedii hore ee ahaa dhowrista madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliya, wuxuuna hoosta ka xariiqay in aysan diideynin in Soomaaliya badaheeda ay Itoobiya ganacsi ahaan ay u isticmaasho oo ay ka faa'iideysato, balse ay diidayaan in saldhigyo military iyo weliba ciidamo ay u isticmaasho badda Soomaaliya. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay in shirka maanta u furmay Soomaaliya iyo Itoobiya uu noqonayo wejigii labaad ee dadaalada Turkigu ay ku doonayaan in uu xal uga gaaro xasarada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyo midda gobolka, kaasi oo ka soo hormaray waqtigii loogu ballansanaa. Dabcan taasi waxay ka dhigan tahay sida xeerarka qaramada midoobay oo kala soo kale uu dhigayo ah wadamada aan badaha lahayn iyo wadamada deriska ah ee badaha leh ay heshiisyo la galaan oo ay markaas helaan marin badeed helisteedu macnaheedu ma ahan wax ka baxsan ganacsi. Waa sidaan hore kugu sheegay, waxay la mid tahay sida wadamada Uganda, Congo, Burundi, Rwanda ay u isticmaalaan dekedaha Tanzania iyo Kenya. Xiriir noocaasi ah ayay Soomaaliya diyaar u tahay in ay arrimo ganacsi oo markaas iyadoo loo turayo dalka Ethiopia oo aan bad lahayn darteeda ganacsi ahaan loo sameyn karaa, sida aan u sheegay wadamada bariga Afrika ay u isticmaalaan dalalka gobolka ee Kenya, Tanzania. Marka helista marinka badda ee wasiirka Turkiga ka hadlaya micnaheedu waxa weeyaan in labada dal iyadoo la ixtiraamayo madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliya in ay markaas Ethiopia heshiis la gali karto Soomaaliya ku saabsan in arrimo ganacsi awgeed ay u isticmaali karto dekedaha Soomaaliya sida caadiga ah oo xeerarka caalamku ogol yahay. Waxaa la shaaciyay in Masar ay u gudbisay codsi in ciidamadeeda ay u soo dirto dalka Soomaaliya oo Itoobiya jaar la ah si ay uga qayb noqdaan qorshaha nabad ilaalinta ee Midowga Afrika. Itoobiya iyo Masar ayaa waxaa u dhaxeeya xurguf aad u weyn oo dhinaca webiga Niilka ah. Haddii ay Soomaaliya imaatana waxa ay noqon doontaa arrin gaar ah oo Itoobiya ay si gaar ah il ugu eegto. Midowga Afrika ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay soo dhaweynayaan codsiga Masar ee ah ciidamadooda inay u soo diraan Soomaaliya si ay uga qayb noqdaan kuwa nabad ilaalinta u jooga. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in marka lagu dhawaaqayo ciidamada Midowga Afrika ee ku meel gaarka ee Soomaaliya ee ATMIS in la bedeli doono in ciidamada cusub oo la yiraahdo howlgalka taageerada iyo xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya sanadka 2025 lagu dhawaaqi doono, ciidamadaasna ay ka mid noqon doonaan ciidamada Masaarida. Shir ay dhawaan yeesheen golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika, Masar iyo Djibouti ayaa shaaciyay inay u gudbiyeen codsi ah in ciidamadooda ay geeyaan Soomaaliya si ay u hoos yimaadaan ciidamada cusub ee nabad ilaalinta ah ee la geynayo Soomaaliya. Labada dal ayaa muujiyay rabitaankooda ah in ciidamadooda la geeyo Soomaaliya oo howlgal nabadeed oo xasilin ah loo geeyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobollo badan oo ka mid ah Soomaaliya ay dalka ka bixi doonaan haddii uu dalabka Masar la xaqiijiyo. ADMISna waqtiga howlgalkeeda uu dhammaanayo sanadka 2024 waxa ay ka dhigan tahay in ciidamada Masaarida la geyn doono Soomaaliya bilowga sanadka cusub 2025. Haddaba maxaa Cabdifataax Al-Siisi ciidamadiisa uu ugu dirayaa bariga Afrika? Maxayse diritaanka ciidamada Masar uga dhigan tahay Soomaaliya, Itoobiya iyo weliba gobolka? Wixii aragtidaada ah noogu reeb qaybta faalada ama commentiga, adiga oo sidoo kale barnaamijka noo like garaynaya oo noo share garaynaya si uu dad badan u gaaro. Mahadsanidin.